بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bisha 8 tahay Abriil waxaan safar u socdaa aniga iyo wafdi wasiirka ka kooban dalka Imaaraadka Carabta safarkaas oo muddo taagnaa laakiin hawlo shaqo darteed dib u dhacay waxaan rajaynaynaa muddada aan ku maqannahay hawlo dhowr ah oo dalka Imaaraadka iyo Puntland ka dhaxeeyay inaan ka soo wada hadalno oo ugu muhiimsan tahay sidii xiriirka ganacsi ee labada dal loo soo xoojin lahaa oo ugu horeysa xoolaha Puntland oo waayadan dambe laga joojiyay Imaaraadka sidii loo furi lahaa sidoo kale maadaama Puntland ay garoomo casri ah dhisatay sidii diyaaradaha Imaaraadku maadaama xiriir ganacsi leenahay ay u soo imaan lahaayeen garoomada Boosaaso iyo Garowe sidoo kale maadaama dekadii DP World iyo xiriirkii ka dhaxay Puntland ayaantan dambe sidii loo dilay agaasimihii u joogay dekada Boosaaso Paul ay soo dhaxgaleen arrimo dhinaca nabadgelyada ah iyo mashruuca sidii loo sii wadi lahaa inaan wax isaga soo ogaano oon runtii wixii caqabado halka jira aan ka gudubno oo si mashruuc hore ugu socdo sidoo kale dawladda Imaaraadku waxay naga caawiyaan ciidamada BMBF-ta oo runtii shaqo weyn ka haya dhinaca xeebaha iyo la dagaalanka argagixisada oo iyagana u baahan in horumarin dhinaca ciidanka ah maadaama culeysyada amni ay soo bateen siday nooga taageeri lahaayeen inaan kala hadalno iyo arrimaha ku saabsan horumarinta dhinaca dhaqaalaha marka kulay waxaan rajaynaynaa muddada aan ku maqannahay waxyaabo dan u ah Puntland inaan kala soo hadalno waxaan rajaynaynaa safarkeenaas inuu guul ku soo dhammaan doono waa safarkii ugu horeeyay laga bilaabo muddadii doorashadu ay dhacday 8 Janaayo aan dibadda ugu baxo saddexdaas bilood runtii maanta 3 bilood baa ku buuxda inta badan waxaan ka shaqeynaynay sidii loo unki lahaa administrationka cusub shaqooyinkiisa u gudan lahaa